السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا سينس 24 waxaanu ka hadalnay casharadii ka horreeyay waa maxay current waxaanu waa flow of electron qulqulka electronada weeye waxaanu kala kasoo hadalnay waa maxay voltage waxaanu waa magaranaysaa waa differentiga u dhaxeeya laba point hadaysan jirin mataqaana difference position hadaysan jirin position difference oo laba point hadaysan jirin circuitka electron ma soconayaan marka maadaama hadaba haday jirto magaranaysaa two different positional haday magaranaysaa jiraan oo electron qulqulaya waxay imaanaysaa iska caabintaasna waxaan u niri waa resistance saddexdaas waynu ka soo hadalnaa kadibna saddexdaas marka la isku qabto waxaan magaranaysaa maanta ka hadlanaa sharciga isu keenaya oo saddexdaas lagu soo ururiyo la dhaho Ohm's law marka Ohm's law horta xagu ka yimaado Ohm's law wuxuu ka yimaaday nin la oran jiray Georg Simon Ohm oo Jarmal ahaa oo ku dhashay magaalada Erlangen ayaa sharciga magaranaysaa wuxuu sameeyay experiment wuxuu sameeyay waxa loo yaqaan current-ga iyo resistance-ka iyo voltage-ka ayuu isku bardhig ku sameeyay kadibna si isugu xidhan yihiin ayuu arkay wuxuuna wax kale ma aha in current-gu wuxuu direct proportional leeyahay voltage-ka taas macnaheedu waxa weeye haddii aan voltage-ka badiyo oo 20 soo 40 hadaan badiyo current-ga electronada iska caabinta ay ku sameeyaan electronada mataqaana ay ku rabaan electronada ku qulqulaan aad magaranaysaa minus ka tagaan oo plus ka tagaan waa badanaysa sadarteed hadaan badiyo voltage-ka current-gu badanaya marka waa direct proportional taas marka ay dhacday hadaba sidee uu current-gu magaranaysaa u saameynaya waxa loo yaqaano resistance-ka marka current-gu wuxuu indirect proportional yahay resistance-ka taas meel waxa weeye haddii resistance-ku badato electronada weeraanaya taasna wax kale ma aha dad laambadan kale haday iska caabinteedu badato electronada qulqulka electronada qulqul laha weeraanaya markaas taas mar waxay la tahay direct proportional wala direct wala badanaysa marna waa indirect proportional isku xidhay haday resistance-ku yaraatana electronada qulqulka u badanaya electrons dib loo kumarayaan hadii laakiin iska caabintu badatana weeraanayaan waa sida caadiga ah kala magaranaysa hadii biyo oo kale hadii meeshan marayaan hadii biyaha ma taqaana anigu aan rabo inaan biyo meel qulqulayo kale hadii biyo xagga u socdaan oo kale way sii jiidayaan hadii laakiin iga hor yimaadaan magaranaysa hore uma socon karo wasaas oo kale marka resistance haduu bato current-gu magaranaysa weeraanaya hadii yaraadana uu badanaya marka labadaas isku xidhay marka labada uma ka sameynaa marka sharci marka wuxuu yiri Ohm's law current-gu marka wuxuu la mid yahay current-gu wuxuu la mid yahay voltage-ka oo loo qaybiyay resistance-ka marka labadii waan magaranaysaa hadii direct proportional voltage-ka wuxuu indirect proportional yahay resistance-ka marka sharcigaas waxa la dhaho Ohm's law waana sharciga ugu horeeya electronic marka balance basic waa marka sharcigaas waa mar walba waa muhiim marka electronic balance waa sharciga koowaad Ohm's law marka intaas inaad barato weey marka taas marka ogtahay hadhow subject formula waa ka dhigi kartaa hadii lagu weydiiyo voltage hadii lagu weydiiyo hadii resistance lagu weydiiyo kii doono hadii lagu weydiiyo waa soo saari kartaa si easy ku soo saari kartaa hadii voltage wuxuu la mid noqonayaa waa current-ga lagu dhuftay resistance-ka hadii resistance-ka lagu weydiinayo waa voltage-ka loo qaybiyay current marka inta waa ku heli kartaa oo inta easy-ga oo subject formula casharadii hore aan ku soo bilownay ayaad ka heli kartaa aad ku soo baran kartaa hadda subject formula si loo sameeyo aqoon laakiin waa iska easy wax ma qof walba inuu garanayo si loo sameeyo subject formula tusaale hadaba waxaan haystaa hadeer circuit-kan haystaa hadda circuit-kan rabaa waxaan example aan ka bixino tusaale ahaan oo kale marka waxaan haystaa tusaale ahaan oo kale 6 volt baan haystaa halkan waxaan haystaa 12 ohm baan haystaa waxa lagu yiri waxa soo saartaa current-ga marka halkan qulqulaya soo saar baa lagu yiri current-gaas halka qulqulaya oo I ah oo saas maganahay dhex maraya amperemeter-ka dhex maraya soo saar halkaas oo cabirayso okay saan ku saari karaa marka waxaan ku saari karaa wax kale ma waxaan isticmaalayaa sharcigeena aan isticmaalayaa hadii voltage-ku waan haystaa waa 6 tan waa ohms-ka resistance-ka waan haystaa waa 12 inta ma ku saaray marka easy way waxaan Ohm's law wuxuu ahaa voltage current-gu wuxuu ahaa voltage-ka loo qaybiyay resistance-ka kadibna waxaan oranaya current-gu wuxuu la mid yahay 6 volt oo loo qaybiyay 12 ohm kadibna labadaas aan soo qaybina waa 0.5 ampere marka hadina amperemeter-kaas wuxuu akhriyayaa 0.5 marka intaas weeyaba Ohm's law lagu sheegayo hadda kii lagu siiyo waad raadinaysaa saas ku saaraysaa waa easy way marka qaar insha Allah waxaan u bixin doonaa
practice bixin doona insha Allah marka ka dab ku jino cashirkeena. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.